السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحافلة dhalinyaro inaa wanaagsantihiin oo caafimaad qabtiin maasha Allah. waxaan dhamaystiri doonaa ama wax yar ku dari doonaa haddii ilaahay karaal noqdo website-kii aan hore usoo sameynay. had wada xasuusataan ayaa wax yar ku daraynaa. waa privacy and policy iyo disclaimer, labadaas ayaan ku dari doonaa insha Allah. Okay, si aan privacy and policy disclaimer ku darno waxa u baahannahay inaan pages aan ku soo darno page cusub. Okay, hadda aan u jeedid kuwan dambe waa categories of pages aan ka dhignay, mid walba marka lagu dhuftana xog cusub na siinaya. marka waxa u baahannahay hadda inaan ku soo darno page cusub oo loo yaqaano privacy and policy. Okay, waxaan tagayaa pages kadib all pages aan leeyahay. Okay, marka sidaan inoogu soo kaco waxyaabahan iska xir, waxyaabahan uma baahnin. waxaan leenahay add new page ayaan leenahay. Okay, add new page ayaan leenahay. Okay, marka sidaan inoogu soo kaco halkan ay waxaa ku qori doonaa haddii ilaahay karaal noqdo privacy and policy ayaan qori doonaa. privacy policy leedahay policy. Okay, sida marka u qorno hadda page-kii magaciisa waaye. waxa u baahan yahay marka xogtii raaci lahayd inaan qorno. marka anaga ma qoreyno privacy and policy-ga oo korka ma qoreyno. waxaan sameyn doonaa Google-ka ayaan kasoo sameysan doonaa AI ama generator ayaan isticmaali doonaa privacy and policy loo yaqaano insha Allah. plus ayaan leenahay kadib Google ayaan leeyahay. Okay, the page-kii wuu ii diyaarsan yahay, waa ka privacy and policy ku qoran. kadib qoraalkii privacy and policy-ga ahaa ayaan soo diyaarsanayaa. Google-ka ayaan soo kacsanayaa. kadib halkaan ay wax qori doonaan haddii ilaahay karaal noqdo privacy and policy generator. oo ujeedaa hora u raadiyey, aniga hora u isticmaalay. marka saas ayaad u qoraysaa privacy and policy generator. midka ugu horeeya ujeedid calaamada naqshadana ayaad ku dhufsan doontaa oo 100% free ah. Okay, macnaha privacy and policy qoraalkiisa ayaa lagu diyaarinayaa ayagoo free ah. Okay, waxaan leenahay marka linkigan ayaan ku dhufanaynaa. halkaan marka soo maadid. Okay, halkaan ay waxaa ka dooran doontaa website miya mise wuxuu ku leeyahay app. waa uu ku leeyahay website. waa anaga waxaan hadda web ayaan ku dhufanaynaa, then continue generate privacy and policy ayaan leenahay. Okay, in layla socdaa filaa. kadib halkaa markuu imaado wuxuu ku leeyahay linkiga website-kaaga soo geli. linkiga website-keena halka ayaan tagay. linkiga okay localhost/xaqil ayaad soo koobinaysaa. kadib waxaad gelinaysaa website-ki. okay, hal mar. okay, naqshad waa loo jeedaa ma naqshada waa kana. marka aad dahayd website dooratid oo continue aad ku dhufatid halkaan ayuu ku keeni doonaa. halkaan markuu ku keeno meeshaan linkiga geliyo ku tahay. linkiga ayaan gelinay. okay, halkaan wuxuuna weydiinayaa website. okay, namekiisa website-ka namekiisa. my site name waa Aqil Electronics waaye. Aqil Electronics. okay, Aqil Electronics saas ayuu qoran yahay. kadib hoos sii soco. halkaan wuxuu ku leeyahay ma business ah mise individual iska dooro. okay, individual. kadib halkaan wuxuu ku leeyahay waddankaaga geli. Soomaalina ku jirtaa filaan fiirin Soomaaliya ka. okay, kadib maxaa leenahay next aan leenahay step ku xigo gudub. ujeedaan Soomaan alaas yaran ka samaysid. kadib next ayaan leenahay step ku xigo gudub. halkaan marka wuxuu ku leeyahay xog nooceed ka aruurinaysaa personka ama qofka shakhsiga ah. marka hadba midka jeceshahay dooro. okay, midkaan hadba hadda number ratid hadda ratid or xabaa soo dooran kartaa, laakiin isma dhibeeno. waxaad dooran doonaa aadaas and then next ayaan dhihi doonaa insha Allah. next. okay, hadda aan ku soo celshay. wuxuu dhahay how can users contact. okay, sida macnaha userska ula soo xiriirayaan haddii question waxaas ku weydiina oo kale like by email iska dheh.
okay email اللي يقول لي هاي email كله ولا سؤال لا أنتنا by phone تلفون قلي okay هبكلا فضت by visiting website link يسجل by visiting website هيك دكتي by visiting website then link يا ميشن قلنا مركا إن إسلام مرة معنا جيميل أي واحد سنة قلي مرة ما دام هو هاي مت عن تجاوله وسمينا إنه okay وحلينا مركا website link قلنا okay link واقع then حلينا هاي next okay sida ayuu kusoo saaray hadda halka wuxuu ku leeyahay ma mid professional rabtaa mise mid free ah okay haddii mid professional rabtid yes ayaad leedahay yes marka dhaad kadib waa su-aalo ku weydiinaya su-aal walbana waxaa waaye lacagaa saaran meesha lacag ayaa imaahaysa marka anaga lacag ma rabno midka freega ayaa rabnaa no ayaa iska leenahay maadaama aan ku tababarnayno dan waxaan leenahay next ayaan leenahay kadib halkan gmail geli ayuu ku leeyahay ama email just checkرينو email ka igu samaysna okay dashboard ki celi okay gmail ka evena ilowdid waxaa kasoo dooran kartaa meelana kasoo raadin kartaa waxaad imaanaysaa settings may waxaad tegaysaa users okay profile leh user profile ka aan rabnaa inaan fiirina marka daanu ka weyno meesha user profile ka gmail waa kana mujda gmail kan ayaanu gelinayna insha Allah gmail kan soo koobiyay kadib waxaan leeyahay meeshii celi gmail ka geli kadibna waxaan leeyahay generate okay $0 waa ujeeda samaan generate duu ku generate reynaya privacy and policy kadib hoos u deg okay halkana ujeedid copy this to clipboard kaas ayaad copyaysanaysaa copy ayaad leedahay kadib waxaad u soo laabanaysaa meesha aad qoraalka qoraysay oo page cusub aad kusoo samaysay privacy and policy meesha inoo qoran kadib inta waa dhigi kartaa sidoo kale waxaad samayn kartaa waxaa ujeeda soomaan inta saas ugu dhigi kartaa okay waa kana kaasaa iska tiraysaa okay disclaimerka kugu tusaa habka kale kan saga bixi heading uma baahnin okay halkaas heading bis u baahana privacy and policy then publish leedahay hadda kan already saan ku sameynay hab kale loo ku tusi doona insha Allah publish ayaan leenahay kan publish ayaan ku eegnaynaa qoraalka sawir xarada markii inuu diyaarsamo view page ayaan leenahay view page ayaan leenahay waa kana mujeda like inta lagu soo darin hadda laakiin waxa ujeedaa privacy and policy oo diyaarsan inuu meesha ku yaalo ujeeda Soomaan xog tiro badan oo waliba okay inta maadaama ka diyaarinay mid kale disclaimer ka ayaan diyaarin doonaa insha Allah kaas shaqadiisa ay ku dhamaatay waxa leenahay mar kale waxaan u laabanaynaa qaybta pages ka ayaan u laabanaynaa page cusub oo waxaa sameysanaynaa disclaimer loo yaqaano okay markuu meeshaan kugu soo celsho kadib waxaa leedahay qaybtan add ayaa leedahay new page okay kadib halka markuu keeno waxaan leenahay disclaimer ayaan leenahay okay disclaimer ayaan leenahay disclaimer marka soo qorano kadib xogtiisa ayaa noo dhiman xogtiisa kuwan naga xir waxaan leenahay mid kale jiro asna website kale laga soo raadiyo okay googlihii aan ku dhufsano like marka soo noo soo baxo waxaan leenahay disclaimer generator waa ka uu soo booday disclaimer generator ayaa leedahay asna waxaa jiro design uu leeyahay waa ka designkiisa وجد اللغة قيبت وصل يسوى كان كوبات أي كل سنة okay أنا سوكعو just واكنا design كسيوليها من اللغة سيوليها سيدي أكل اسمه كليها ما ويب سايت بقى مسا أب ويب سايت أي لها هاي continue أي لها هو ويجي هر أكل وحقه هذا شو دبيين كتب وحقه يدينا يا ويب سايت كي link كي سيكون يدينا يا ويب سايت name كي يكون يدينا يا بس كومت وحسس مكال قديسنا individual ayaa leedahay okay
halkan waxaad dooranaysaa Somali wadanka aad joogtid adiga. Okay, then next ayaa leedahay. waa sidii markaa inta su'aalo la weydiinayaa su'aalahaas uma baahnin waxaan leenahay no. Okay, haddii kale mid walba su'aal lacag baa dul saaran yes daday anagana tabarteena ma dhamo lacag bixin oo weliba tirada ka badatay. Okay, waxaan leenahay markaa no. Okay, no. halkaana tii haddaad camal waaye by visiting website ay iska dhigi kartaa ama page kadibna linkigi ayaad gelin kartaa. Okay, then waxaan leenahay next. haddaad number waa ka dhigi kartaa, haddaad gmail waa ka dhigi kartaa, kaas sida lagula soo xiriiri lahaadee. next ayaan leenahay. kadib halkan gmailka aynu weydiinayaa, gmailkina oo ka bisan yahay waa ka. kadib waxaan leenahay haddana generate ayaan leenahay. Okay, isagana hadda wuu inoo generate gareeyey, just wuu inoo soo saaray. waa ka hoos u soco, waa kaasna wuxuu leeyahay copy this to clipboard. markaas soo copystid waxaa u laabanaysaa page-ka aad soo samaystay disclaimer-ka ahaa. kadib hab kale ayaa jiro, habka kale inaan ku saaraba halkan plus ayaad ku dhufsanaysaa. Okay, ina arkaysaa filaa meedad inta ka dhignay hadda halkan plus ay ku dhufanaysaa, meeshan plus ay ku qoran tahay. markaas soo furtid halkan ayaa waxaa ku qori doontaa haddii ilaahay ka noqdo HTML. waa ka custom HTML kaas ayaad soo dooranaysaa. kadib halkan ayaad dhigaysaa qoraalkii aad wadatay Ctrl V. kadib kor u soco asna wuxuu meesha ugu soo darayaa disclaimer kale oo asi qoray. Okay, disclaimer kaasi qoray iska bixi maadaama page-ka aad samaysay disclaimer-ka magaciisa. kadib waxaa leedahay isagana publish, wax kale uma baahno, publish ayaa leedahay. Okay, hadda wuu inoo publish gareeyay view page ayaan leenahay. waan fiirinaynaa page qaabka u dhisan yahay oo inoogu samaysmay. Okay, disclaimer-ka waa kana asna soo ujeedid, waa sida inoogu soo baxay aad ugu qurux badan soo ujeedid. Okay, kadib waxaa noo dhiman inaan kusoo darno halkan qaybta inaan kusoo darno oo inta kasoo muujino labada page hadda aan sameynay. si aan ugu soo darno marka isma dhibeen waxaan tegaynaa qaybtan loo yaqaano customize ayaan tegaynaa. customize ayaan ku dhufanaynaa. Okay, customize markaan ku dhufano gudaha inoo soo saari doonaa. kadib waxaan kusoo dari doonaa site-ka ayaan kusoo dari doonaa. Okay, site menu-gaas ayaad tegaysaa, qaybtan menu ku qoran tahay ayaad ku dhufsanaysaa. kadib halkan main menu-gu fur, kadib add new main menu dheh, kadib disclaimer iyo privacy and policy meesha ku yaala ujeedaa. waxaan leenahay hadda privacy and policy-ga kusoo dar, disclaimer-kana kusoo dar. waxaa ujeedaa hadda waa lagu soo daray labadii page. publish ayaan leenahay, wax kalaba ma qabanayno. kadib waxaan leenahay back dheh, kadib refresh dheh. hadda ujeedaa intuu ka maqan page-ka Soomaan. refresh markaan dhahno laba page ayaa lagu soo dari doonaa. Okay, waa ujeedna Soomaan waa lagu soo daray. Okay, waxaa inoo dhiman marka hadda waxa inoo dhimanba waa inaan sameyno multi yani inuu kusoo kaco multi screen inuu kusoo kici karo ama multi platform inuu macnaha kusoo kici karo mobile-ka, sidoo kale iPad-ka, sidoo kale laptop-ka. saddexdaas nooc inuu kusoo kici karana. waxaa leenahay element kana waxaan ku dhufanaynaa Elementor with edit with Elementor ka ayaan ku dhufanaynaa. mar aan fiirino edit with Elementor marka ku dhufano gudaha markuu la geeyo waanu arki doonaa marka haddii inoo soo saaro cabirka inaan saxnaa rabnaa, micnaha qaabka telefoonka ugu soo kici lahaa, qaabka iPad-yada ugu soo kici lahaa, iyo qaabka ugu soo kici lahaa desktop-yada ama laptop-yada. Okay, cabiradaas inaan saxnaa rabnaa haddii ilaahay ka raali noqdo. waxaa ujeednaa halka hadda marka horeba waa sameynay qaybta computerska ama laptopska. waxaa inoo dhiman qaybta tabletska iyo qaybta mobile portraitska. Okay, qaybta tabletka ayaan ku dhufanaynaa. marka ku dhufano waa ujeedaa hadda xoogaa cabirkiisa wuu weyn yahay. Okay, xoogaa cabirkiisa wuu weyn yahay. marka waxaan rabnaa inaan cabiradaas soo saxno. waxaa leenahay marka halkaa ku dhufo, halka markuu kusoo saaro style
waxaan tegaynaa advanced kadib waxaan leenahay okay halkan waxaan ugu qoraynaa marka tirada aan ugu talagalnay inaan ka dhigno tabletka 45 okay 45 hadda waxaa ujeedaa inuu godadka dhan isku soo qormaayo iga tir waxaa u baahanahay linkigan ayaan ka qaadayaa kadib midka koowaad ayaan waxaan qori doonaa 45 okay zeerada ka tir 45 okay midka saddexaad ayaa hadana ku qorayaa waa top iyo bottom micna top iyo bottom waaye 45 ayaan ku qori doonaa okay marka intaa ku qoro hoos ayaan u degi doonaa marka hoos ayaan u degi doonaa okay kan uma baahnin marka size kan uma baahnin inaan wax ka bedelno zeros ayaan ku celinay waxaan leenahay qaybta textiga inuu bedel kaliya waxaan leenahay textiga ayaan ku dhuftay textiga waxaan rabnaa inaan xoogo habeeno style ayaan tegaynaa kadib waxaan tegaynaa halkan typography kadib meeshan oo ah 65 ka ah waxaan ka dhigi doonaa 45 ayaan ku dhigi doonaa oo farta inaan yareynaa rabnaa kadib kan ku xiga tag qorakan gool ku xigo kadib waxaad tagaysaa style then waxaan leenahay typography ayaad soo furaysaa kadib 45 ayaad ka dhigaysaa okay hoos sii soco marka cabirka kale tabletku iyo laptopku isku soo dhow yihiin then kan textigiis le aan saxnasna style tag kadib waxaan leenahay typography kadib waxaan leenahay 45 okay hoos u sii deg halkan tag waxaad tagaysaa style typography kadib isna waxaa leedahay 45 saas ayaad ku wadaysaa marka inta wax kale maynoo dhiman kan waxaan leenahay style typography kadib waxaan leenahay 45 inta aad samaystid saas ayaad ku samayn doontaa halkan tag typography ku dhufo inta tag 45 dheh wax kale maynoo dhiman hadda qaybtan waynoo dhamaatay okay waxaa inoo dhiman markaa qaybta loo yaqaano mobile portrait marka mid walba size gaar waaye kan 60 waaye kan 45 waaye kan waxaan ka dhigi doonaa 32 ama tiradii markaa ku habboon aan ku dhufano textiga waxaan tegaynaa qaybtan loo yaqaano style typography kadib 45 waxaan u bedeli doonaa 32 okay ka marka saas u sameyno hoos ayuu usii degaynaa insha allah hoos aan u socono qaybta textiga aan imaano okay textiga markaasna aan ka dhigno 32 stylekiisa ayaan joognaa typography 32 ayaan leenahay okay sidoo kale waxaa ujeedaa marka godkan inuu aad u weyn yahay godkan markaasna xoogaa inaan yareynaa rabnaa hadda advanced u baahanaa marka advanced marka ku dhufano halkan tigta idin qaadayna kadib waxaa leenahay halkan 30 meesha 60 ahayd 30 ayaanu ka dhignay okay 300 ayaan noqotay waa ka marka okay haddaad rabtid kori hoose ka dhigi kartaa top and bottom 30 waa ka marka okay laakiin kaas kaliya aan ka dhigano hoos u dayno marka okay hoos sii soco marka waa qaybta mobile iskan joognaa hoos aan sii socono meeshan waxaan ka tagnay midka koowaad midka labaad kan aan imaano style kadib aan dhahno 32 kadib aan dhahno advanced halkan aan link ka qaadno halkan aan gelino marka 30 okay hoos sii soco inoo xidho mobile scan waxaan leenahay stylekiisa typography 32 then advanced ayaan leenahay advancedkiisa meeshaan link ayaan qaadayna eber markaas ku noqdo waxaa ku dhufanaysaa 30 ma ka dhigaysaa 30 halkan style tag kadib 32 ka dhig waa same hadda mobile ay isleeyihiin advancedkiisa tag linki ka qaad kadibna waxaa leedahay 30 isna hoos u sii deg okay amazing product noo haray amazing product gaasna waxaan leenahay typography 32 ayaan ka dhigaynaa
okay 32 kadib waxaan leenahay advanced linkigan ka qaadaynaa kadib waxaan leenahay meeshaan iyadana 30 wax kalma inoo harin markaas si qurux badan ayuu noogu soo baxay website-keena. Mobile haddii lagu fiiriyo wuu qurux badan yahay, haddii lagu fiiriyo tabletska wuu qurux badan yahay, sidoo kale wuu qurux badan yahay haddii lagu fiirsho qaybta iyo laptopska haddii lagu fiiriyo ama desktopka lagu fiiriyo aad ayuu qurux badan yahay. Publish ayaan leenahay marka hadda wax kala gaar ah inoo soo haray ma jiro. Projectkeena sidaas ayuu ku dhamaaday. Waxaan leenahay back home page waa camera intan wax ma naga halaabin. Projectkeena marka hadda waa inoo qurxoon yahay maasha Allah. marka saaxiibada dadaal wacan insha Allah guul baa idin rajeynayaa. inta ay kusoo gabagabeynaya videoga تقدرينو فيديو ka xiiso badan waxaan idin leeyahay nabadgelyo insha Allah. Goodbye.